Sida aan wada ognahay, dunida ayaa heer ka gaartay tiknoolajiyadda iyo arrimaha kale, laakiinse weli waxaa jira dad aysan gaarin ama ku nool nolol ka gedisan mid aan ku noolnahay. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadan doonaa dad ku nool nolol aad ula yaabi doonto. Baturani waxa ay ka soo jeedaa waddanka Hindiya. Waxaa loogu magac daray naagtii biyaha. Waxa ay ku dhex noolayd biyaha muddo 20 sano ah. Ma aha wax sahlan in muddo dheer aad ku dhex noolaato biyaha. Naagtani ayaa go'aansaday markii qayb ka mid ah reerkeeda ay dhinteen in biyaha ku dhex noolaato. Gabar ay dhashay ayaa sheegtay in hooyadeed 2 bilood hal mar kaliya ay wax cunto, iyadoo diidan in biyaha ay ku dhex xaajooto si aysan u wasakhoobin. Waxayna dhakhaatiirta sheegeen in arrintani ay tahay arrin dhif iyo naadir ah. Amwahaji waxa uu ku nool yahay waddanka Iiraan. Waxa uu jiraa 80 sano. Ninkani ma uusan qubaysan muddo 60 sano ah, tintana iskama xiirin. Waxa uu cunaa hilibka xayawaanaadka bakhtiya. Waxa uu sheegay in nolosha caadiga ah uu ka jecel yahay midda uu ku nool yahay. Bob Alexander markii uu jiray 5 sano waxaa ku dhacay cudurka qalalka ah, waxaana ku adkaaday neefsashada. Waxaa la geliyay sanduuqa aad u jeedaan ilaa dhallinyarnimadiisa. Waxaas ka sii daran in ilaa 70 sano isagoo jiro uu ku dhex jiro sanduuqaasi. Taasina kama joojin noloshiisa caadiga ah in uu sii wato. Miguel Restrepo ninkani waxa uu ku nool yahay god ku yaala waddanka Colombia muddo 20 sano ah. Godkaas oo cabirkiisu yahay 3 mitir. Waxa uuna sheegay ninkan in uu aad ugu weyn yahay godkaas. Waxaana u dhex yaalo godkaasi sariir, TV iyo marwaxad. Waxaana la nool xaaskiisa iyo eygiisa. Mahatan Amar imise ayaa gacantaada kor u taagi kartaa? Ninkan ayaa gacantiisa midig kor u taagneyd muddo 45 sano. Waxa uuna ku sheegay in sababta uu kor u taagay ay tahay nabadda caalamka. Waxa uu reerkiisa ka soo tagay 3 sano ka hor inta uusan bilaabin arrinkani. Mar la weydiiyay in uu xanuun dareemayo ayuu sheegay in bilowgii hore uu dareemi jiray xanuun. Sean waa 80 jir u dhashay waddanka Shiinaha. Ma uusan xirin tintiisa iyo shaarbihiisa muddo 20 sano ah. Dhererka shaarbihiisu waa 1.5 mitir, halka tintiisa ay tahay 1 mitir. Marka uu dhaqayo waxaa garab siiyo dadka deriska ah. Waxa ayna qaadataa 5 saacadood in la dhaqo tintiisa. Markiiba waxaa lagu dhaqaa 5 caag oo shaambo ah. Yogi al-Hindi ninkani Hindiga ah ayaa la sheegay in muddo 70 sano ah uusan waxna cunin. Waxa uu gurigiisa ka tagay isagoo 8 sano jir ah. Waxa uu ku noolaa duurka. Waxa uu aaminsan yahay in uusan ahayn qof caadi ah. Markii dhakhtar loo qaado si loo baaro intii uu joogay isbitaalka, waxna muusan cunin. Waxayna dhakhaatiirta arrintani ku tilmaameen arrin la yaab leh. Rahma Harun gabadhii reer Nigeria waxay ku dhex nooleed caag muddo 19 sano ah, iyadoo aan awoodin qalabka casriga ah. Ilaa markii dambe loogu deeqay kursi. Waxaana garab sii jiray walaalkeed oo meel walba ay rabto gey jiray. Rahmo xanuunkeeda ayaa ku bilowday qandho iyo calool xanuun iyadoo jirto 6 bilood. Waxaan soo gaarnay dhammaadka muuqaalka. Waxaad commentiga noogu sheegtaa sheekadii kuugu yaabka badneed. Fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan, subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalo xiiso badan.